بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا شرفت قيمها للسود وهذا وحرجينا يا إن بدقبطان ما شاء الله تبارك الله. waxaan hortiina ka muuqdo suuratu al-Faatiha. walaalayaal suuratu al-Faatiha ma sha Allah. waxaan rabaa wax yar inaan ka tilmaamo. soo dhawaada waxaan idinka codsanayaa channelka inaad subscribe ka saartaan. walaalayaal xadiis baa wuxuu ahaa mase waxay ahayd hadalkii culimada wali waxaan malay Ali bin Khadaab inuu hayban malaha kulli dadkii wanaagsan hadalkoodii isxisaabi intaan lagu xisaabin waxa weeye qofku inuu maaragtay dad waxa jira suuratul Faatiha bawsaday oo bawsi ku bartay caruurta ka bartay meelaha hal soo tuur ka bartay markaas iskaga tukadaan iska wataan inay iska saxaan mar rabaan rag iyo dumar waagu yaraa oo maaragtay qof weyn oo 70 jir ama 60 jir ah waxa laga yaabaa waagii oo 9 sano jir ama 8 sano jir macalinka quraanka inuu u dhigay inuusan dib ugu noqon waliba dadka waaweyn ugu daran marka waagi horena waa ogtihiin oo tajwiidka quraanka lagu ma akhri jirno culimadii hore tajwiidka ma aysan aqoon dib bay dadka ka soo wada barteen waayo cilmiga tartiib ayaa loo bartaa ma garatay marka anagu maadaama cajab iska nahay dadkii culimadii maaragtay waagi hore wadamaas carabta may aadi jiraan maleeha marka I don't know cilmiga aad buu ugu yaraa xilligii hore marka walaalayaal suuratul Faatiha marka dadka waaweyn ha laga saxo ayaguna ha iska saxaan waliba nimanku maaragtay hooyooyinka waaweyn iyo gabdhaha aan la geynin dugsi quraanka oo xitaa ayaga ruuxoodu yar oo ayadoo dugsi quraan la geynin saa ku guursatay saa ay ku ilmo dhashay marka ilmo dhashana jaanis ma u helaysin dugsi ay tagto way cilmiba uma leh ilmo koris iyo waxay bagashaba iyo kajadi marka waan tukahay ku leedahay gab suuratul Faatiha ma jahay madaxa la iskaga xiraayo maalinta qiyaamahana waxa la yiri rasuulku kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri acmaasha waxa u horeydo xisaabta suurta balka isheeg salaada u horeyda marka salaadaada haday qaldan tahay oo arkaanteedii iyo ahkaamtii wixii aad ku akhrineysay ka qaldan yihiin suuratul Faatiha waxa la ogyahay qofkii ka qaldanta ataxiyaadkana u maleema inuu saxayo waayo ataxiyaadku ka sii adag yahay shahaadateynka si qaldana loo dhahaa ashhadu dad akhrinaya arkaysa ashhadu laa ilaaha illa allah ay ku leeyihiin xitaa ashhadu laa ilaaha illa allah mana ahan ashhadu laa ilaaha illa allah ashhadu an laa ilaaha an ayaa ku jirta marka laa ilaaha akhrinaya laa ilaaha illa allah marka walaalayaalow anigu waxaan dhihi lahaa dadka waaweyn si tartiib ah qofkii ma dhihi kartid suuratul Faatiha laga saxo wuxuu ku leeyahay qof weyn afka kala qaad ilkaagan tiraa lama yiraahdo marka niyo kale isku akhrinee hadii odagaaga aad maartay diinta ka taqaanid warheede kale iga dhageyso ama markuu akhriyo maqlaysa ka dhageyso asaga ruux soo xatiraad walaalo in la saxa dib ma lehe halkaas ayaad qaldaysaa marka saas u dheh hooyo sidoo kale hooyo quraanka isku akhrino maaragtay gaad mare ku siyaadiyo marka suuratul Faatiha aan kaaga bilaabo si aad isku akhridid ahkaamteeda aan ka saxo si tartiib oo degan habar yar eedo marka aan is saxna dheh adna isax ana aan ku saxo cilmiga Soomaalidu waxa iskaga qanfilan waa dhalankii yiri hooyo san looma dhalay ay ku leeyihiin war dhalanku haday waxay bartaanba sida loo dhalayba soo bartaan oo jaamacad u galeen laakiin anagu jaamacad uma bagelinba marka mahmaayooyinkaas waa mahmaayo qaldan mahmaayada ah dhalankii hooyadii baray sida loo dhalo waa mahmaayo qaldan waayo dhalankii jaamacaday u galeen sida loo dhalo ma jaamacaday u galeen sida quraanka loo barto madarasooyin laakiin adiga ma aad tagin marka dad quraanka ilaahayna aad tiraadid
soo wax ii bari karaa waa dhallaankii yiri oo mahmaahayadaas la soo boodi marka mahmaahayadaas already waa beenowday waayo waxaa la arkay hooyo sida wax loo umuliyo aan aqoonin oo gabadheedu ay taqaano sida wax loo umuliyo wax loo dhaliyo marka mahmaahayadaas waa been taas horta meel ku xirta aan quraanka oo laga saxo ilmahaagu ay ka saxaana ma ahan in maaragta mahmaahayadaas oo kale lagu soo qabiro oo la yiraahdo saasaa la yiridan shaydaana dadku waxyooday iyo odayba say la noqotay iska aqligiisa ma sha Allah ka keen ama ha qaldamo waa iska ijtihaad la yiraahdo ijtihaadku waxa weeye aan wax ay markaas aad xigmad la soo baxday oo wax markaas jira aad kala soo baxday ama dumarka ha ku saabsanaadeen ama ragga ha ku saabsanaadeen ama nolosha ha ku saabsanaadeen waa wax xigmad ah oo qofkaas maanta ra'yigiisa ah marka wixii ra'yiga ahaa in diintii lagu qabiro oo la yiraahdo maya aan sabab wax iga saxaya asagoon dhalan tukan jiray asagoo dhalan hadaa tukan jirta asagoo madaraso u gal aduu laakiin bawsi ayaad ku baratay marka bawsiga waxaan xasuustaa anagoo arday ah ayaa maaragtay maamooyinka kamid ah ayaa waxayna dhihi jirtay suuratul casr waa tagaaban suuratul casr maan dhisko ii akhriya aan maxaad casrkan ku tukanaa waxay u haysataa suuratul casr ay maqashay in casrka kaliya lagu tukado suuratul casr yan tukanaahe casrkan ku tukanaahe ii saxa ii akhriya markaasan u dhigmayno afkii baan ka akhrinaynaa haday doonto way qaldamaysaa wal casri وإن الإنسان لفي خسر waxbay naga daba leedahay laakiin inay saxdo in kala managa naqaana just waan meerinay wixii ay qabatay ku tukatay wixii kalena way qaladaa anaguna ilmo yar baan hayno iska yaacin ilmahaasi ka bawsata bawsi baa marka taasoo kale ii meeri waa in waxa lagu dhigo ama kitaabka inta lagu kala baxsho farta suulka lagu saaro qof weyn oo ka saxo ilmo yar maarta waxa ma saxi karo because daa qaladid halkaas qalada kuma dhigi karo ma garata marka ataxaadka kale dadku bawsi ku bartaan waxaan xasuustaa wiilaan ilmo adeer hayno kor oo akhri jira markaas waxa la dhihi jiray Umar Allah naxariisto dhinta Umar ataxaadka laga bartaa at-tahiyat lillahi was-salawat wad-dayyibat kor oo aqrina ma sha Allah marka qofkii marka bawsi marka dhowr baal ku agtukado oo bawsigaas ka barto ma noqonayso ma ogtahay ma ku noqonayso taasoo kale diin waxa weeye waa in aad qoratid akhrisatid ma xataa farta isuulka lagu saaro qof yaqaan aad tiraado waan akhrinahay iga sax meeshan ku qaldanahay iga qabo marka maadaama la yiri acmaasha la xisaabinhayo soon iyo salaad iyo sadaqo iyo qaraab xariirin iyo iyadoo la gaarin ayaaba salaadaadi la jeegaraynaya waxaad ku bilowdaa salaadina waxa u horeyda suuratul faatiha marka waxa la arkaa lambar 1 ay leeyihiin marka suuratul faatiha aan iska jeegarayno suuratul faatiha marka iska jeegaraydid oo iska saxdid oo maxaad tiraahdaa waxaan arkay dad isku qaldahaya إياك نعبد وإياك نستعين ماشي صح اهدنا الصراط المستقيم نستعين يا مستقيم ميم كينونك يا اسكو قلدان marka nuunka nasta'in ay kuleeyeen miim bay ka dhigaan waxay kale qaldaan an'amtana waa la qaldaa ghayril maqduub waa la qaldaa wala daalina waa la soo gaabshaa in la soo gaabshan maal waa in maarta cabaar codka la jiido waayo mad laazim ayaa saaran wala daalin qofku inuu dhaho ma fahantay bismillaahir rahmaanir rahiim hatta dada qalda oo si kala u dhaha bismillah mi'ad ma aqaan bismillah miimkaas dambe ee ba ka dhigayn because miimka iyo ba'du isku meel bay ka soo baxaan marka rabbi caalamiin dada dhaha rabbil aan dhahaynin walaalayaal marka qalad badan baa jira marka suuratul faatiha isku day haddaadan madaraso iyo dugsi quraan aad u soo gelin
iga dhageysta dadka yaqaano oo isleed waxba yaqaanaan caruurta yaryar aan ahayn madrasad tag aan shiiq intaa shidatid shiiqaanan ka dhageysaa hadhin because shiiqo aad shiday oo raadiyaha iyo youtube-ka aad ka shiday dee kuma u saxaayo asagoo sax u akhriyay